adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahay afar qof unbaa adduunku u sugnaaday afarta qof laba waa ammaanantay labana waa ceebaysantay labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi fahuwa yataqii rabbahu fiih xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanayaa wayasilu bihi raximah nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanayaa kaasi aakhiro afdalulmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahay meelaha ugu sarreeya idan jannada dhulka ugu sarreeya waxa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah wuxuu nebigu leeyahay alaaun uqsimu calayhin saddex waan ku dhaaranaya xadiidna waan idiin sheegaya ee xifdiya saddexdu ku dhaaranaya nebigu waa maxay xoolo sadaqa ma yaraysa buu nebigu leeyahay xoolo kuma yaraadaan ilaahay xaggiisoo la dhigto walaa dulima cabdun madlamatan sabra calayha lama dulmiyo addoonna oo dulmigaa kuma sabro oo ma cafiyo iskama dulqaato ilaa zaadahu allahu ciza ilaa iyo cafigaa ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa sharaf qofna albaabka mas'alada ma fura buu nebigu leeyahay ilaa iyo baab faqri baa loo furaa waxisiidu hadday kugu badato gaal iyo muslim ciddaa doontaba bariya baryadu ma fiicna saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay walaa fataha cabdun baaba mas'ala qof ma furo albaabka baryada ilaa iyo ilaahayna albaabka faqrigu u furaa nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayay wakhtigii islaamka ka horreeyey la samaynayey oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo walow markuu samaynaya uu gaal ahaa laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xasaam saxaabi la odhan jiray oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay qaraabada xidhiidhinteedu waxaan leenahay markaa waa min addiin haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso nacam taasi waa sax waa abaalgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii isagaa dembaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi waasilka ninkan silatu raximka samaynaya ninkan wax xidhiidhinaya ninka abaal guday maaha buu nebigu ninka abaal guday dee tolka markaa isku fiicantiina iyanay wax ku taraan adna aad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiin oo wax istartaan dee waad abaal guday markaa wixii lagu tarunbaad adna wax ka celisay kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa kaasi waa mukaafi baa la yidhi waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalaha buu nebigu yidhi waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee qur-aankana waxaa ku taalla xaadiثatul ifki markay dhacday dhacdadii been abuurkii ee laga faafiyey caaisha ridwaanullaahi calayha ee abibakar ayaa wuu dhaartay wuxuu ka dhaaranaya nimankan warkan rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyey laakiin dadka badh baa jira warka aan hubina iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warkiiyo faafiyey iyana waxaa ka mid ah xasan ibnu thaabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa
waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta Mistax ibnu Athaas, waxaa ka mid ah Xamna. waxaa la yidhaahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen. dabeeta Abibakar wuxuu ka xanaaqay Mistax ibnu Athaas ninkan la yidhaahdo hooyadii iyo Abibakar baa habro wadaaga. markaa Abibakar qaraabanimo iyo tolnimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila. Abibakar baa wuxuu biilaa Mistaxan iyo hooyadiiba Abibakar baa biila. isagoo Abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay Caaisha ay qaraabo yihiin. Abibakar arrintii buu qaadan kari waayey markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax damba siinin. waan ku dilayaa iyo wax baan samaynaya kale Abibakar ma leh bas wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyahay wax damba ku siin maayo. ilaahay baa quraan soo dejiyey leh walaa ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tuu ulil qurba yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey yay ka dhaaranin dadka faqarada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilaahay alaa tuxibbuuna an yaghfira allaahu lakum waliyacfuu waliyasfaxuu. ilaahay wuxuu dhahay ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydan jeclayn idinba baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala in ilaahay dembigiinna dhaafo. idan Abibakar waxaa la farayaa iyadoo Mistax uu dhibta tan geystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo. ayuha alaxibba waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fii atharihi falyasil raximah. ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeya tolkii ha xidhiidhiya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. yacnii min asbaab lagu ballaadhiyo qofka arsaaqda ilaahay ugu ballaadhiyo waxaa ka mid ah inaad qaraabada xidhiidhiso, inaad kahanin marka wax lagu weydiiyo. waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay cimriga ku dheereeya amase ku barakeeyo xidhiidhinta qaraabada buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. saa awgeed buu nabigu wuxuu leeyay ninkii jecel in ilaahay arsaaqdana u ballaadhiyo cimrigana u dheereeyow qaraabada xidhiidhi buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه فلا يؤذي جاره. لبدا الروايات بس صحيح كصارورين نبي حليه عليه الصلاة والسلام نكي إلهي إيما أنت قيام الرميسنو مرتدى صار ninkii ilaahay maalinta qiyaamada rumaysanow jaarka ha dhibin walow gaal laha ahaado. ninkii ilaahay maalinta qiyaamada rumaysanow ama khayr ku hadal ama iska aamo. ninkii ilaahay rasuulba rumaysanow war qaraabadaada xidhiidhi buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay rasuul haddaad rumaysan tahay qaraabada xidhiidhi buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam.